marka uu talaabsaday gobolka si wada ognahay gobolka waxa ka furan dugsiyo fara badan oo ay ka bartaan arday aad u fara badan dhawaantan waxa lagu arkay gobolka Sool meel cusub oo laga furayo oo waxbarasho hadday noqoto mid lagu sii kobcinaya ardayda iskoolada dhigata hadday noqoto iskoolo cusub oo la furayo marka waxaan rabnaa magaalada Laascaanood hadeer waxay noqon doontaa isha waxbarashada ee Soomaaliya saan wada ogsoonahay arday fara badan ayaa ka baxda sanadada iskoolada sare maxay gobolka waxayna jaamacado u aadaan dalka dibadiisa kadib markay dalka dibadiisa wax ku soo bartaan dalkooda iyo dadkooda si ay u saafacaan waxay soo aadaan dalkoodii ayna waxbarashada ay dheer yihiin ay u bari lahaayeen bismillahir rahmanir rahiim anigoo ah Mushiir Axmed Maxamed sanad ahna kiilaha Star Business Center halka waxaan runtii ka salaamayaa boorreyn baha saxaafadda ee nagu soo booqatay xarunta Star Business Center oo nagu mahadcelinayaa taas si adirteed waxaan warbixin kooban doonaa bal information gaaban ka bixinaya ganacsatada gobolka Sool marxaladaha kala duwan ee soo mareen iyo waqti xaadirkan aan maanta taaganahay ganacsigu sidoo yahay runtii ognahay ganacsigu macnaha wax caqabado badan leh horumar badanna sameeya waana wax la socda wax loo yaqaan situation of climate inta badan soo marka hadaan ka bixiyo Laascaanood ganacsigeeda sanadihii ugu dambeeyay macnaha Aroka 2014 wuxuu u bilaabmay si heer caalami ah iyadoo magaalada laga soo kordhiyay dalabada aad u fara badan oo hore looga aqoon sida supermarketska wax loo yaqaan shopping centerska meelaha macnaha gaadiidka spare oo kale iyadoo lagu soo kordhiyo kala goobaha ganacsiga sida carwooyinka baby choiceska meelaha ama baby caring and positionska lagu soo kordhiyay sidoo kale magaalada waxay moodaynay horumar cusub ay sameynayso tadawur fiican dhanka ganacsiga haddii ganacsiga laga hadlayo carqalado badan baa jira macnaha dhanka marketka oo xagga society-ga macnaha businesska oo aan oran karno macnaha dadkii oo inta badan aan fahansaneyn ganacsigu wuxuu yahay iyagoo aan lahayn macnaha aqoonti ganacsiga arkaysa qof ganacsiga leh ama lacagtii haya laakiin aan waddanka uga faa'iideynay oo ganacsiga sameynay taasna macnaha waxay dhabarjab ku tahay bulshada iyo ganacsatada iyo wax loo yaqaan dadka meesha ku nool oo runtii aan ka faa'iideysanay qofka dhaqaalihiisa annaga hadan ka hadalka Star Business brand waxaan ka asaasnay xaruntan muddo hadda laga joogo 5 sano 5 bilood baan ka wada intaana runtii magaalada waxay noogu ammaanaysay ku soo kordhisay magaalada waxyaabo badan oo hore looga aqoon sida aad ka arkayso meesha dharkii shoppingkii sweetskii other families electronicii supermarketskii clothes positionskii macnaha items kala duwan yahay meesha ku yimid soo markaa sidaas waxay arkaysaa in magaalada ay arkayso assembly business macnaha business ku dhex jira marka meesha magaalada laga furo taasna waxay suuro gelinaysaa qof kasta baahidu qabay midabooyinka wax loo yaqaan meel kasta laga furo marka intii bulshada reer Laascaanood waxay ka wadaan wadada maalqabeenka isku joogo waddanka waxba lacagtooda ku fangareynay in waddanka ay lacag geliyaan oo loo sameeyo magaalada hotel caalamiya meelo dalxiis sidoo kale goobaha waxbarashada bismillahir rahmanir rahiim xaaladda gobolka ganacsiga gobolka tan kaaga warramo ganacsiga gobolka aad buu u fiican yahay sida aan horeba u sheegay ama aad indhaha ku soo aragtay meherado badan oo gobolka laga furay baa jira markii aan qiyaasno sanadkii hore iyo sanadkan aad bay u kala duwan yihiin waxaan oran karnaa runtii ganacsiga gobolka ka socda si xawli oo sidii loogu talagalay buu socdaa waxaan u sheegayaa dadka gobolka u dhashay jooga gobolada kale ama ganacsiga ka sameynaya inay waddankooda ku soo dhiiradaan oo ay waddanka yimaadaan sida aan annaga hadda meherada uga furnay oo kale gobolka oo runtii u baahan in laga furo meherada la mid oo kala iyadoo kala wax saameyn hadda ganacsigu magaaladu kuma soo kordhin hadda xaaladdu waa caadi way jireen caqabada hadda ka hor jiray laakiin hadda waxaa moodaa in sidii hore ay dhaanto xaaladda ganacsiguna waa noocaas